falanqeeyay waxaan marka hore ku horeysin doonaa citizenshipka wadankan oo barihii ugu dambeysay lagu waday isbedelkaas oo ku saabsanaa in la joojiyo ama wax laga bedelo cidda qaadan karta iyo sida loo qaadan karo marka dawladihii kale iska soo kala dambeeyay wadankan midba meelba wax soo marsiinayay xisbiyada kala duwan mar walba siyaasadda ay ku saleysan tahay mawaadina taa ogaatiin caalamka haddii wax la bedelayo nimanka wax bedela waa nimanka siyaasiyiinta politicianka weeye marka siyaasadda in lala socdo oo isha lagu hayo waa muhiim weeye waxa caalamka ka socda iyo dibaddaba iyo gudahaba waayo siyaasadda haddaanad adigu aanad la socon aday kugu soo maqan tahay marka siyaasaddu waa ta wax kala wada ee kala hagta qof walba nin walba dantiisa meesha u socoto ayuunbuu ku aadinayaa oo siyaasado iyo boolisiyo dadka markaa lagu xukumo ayaa la soo saaraya marka haddaanad la socon hadhow qodobaa kugu soo baxaya sharciyaa kugu soo baxaya meelaad wax ka bilowdina ma garanaysid marka waa muhiim inaad iskala socotiin idima lihi siyaasadda barta oo gala laakiin waa inaad isha ku haysiin waxyaalaha caalamka ka socda gaar ahaan marka ay timaado wadamadan isay isku bedelayaan wadamada la isku yiraahdo western country-ga gaar ahaan kuwa laga hadlo Englishka kuwaas runtii aad bay isku bedelayaan maxaa yeelay sababahana waxa keenay siyaasadda iyo dadka xukunka qabsanaya kuraasta qabsanaya ee wax xukumaya dadkaas way dadka wax bedelaya oo marka runtii aan arinta ku dheeraanin haddana ku horeyno citizenshipka wadankan waxa la soo saaray sharcigii oo la dhameystiray amendment lagu sameeyay wax ka bedel oo dhigaya in imika wixii ka dambeeya dadkii hore u lumiyay citizenshipka 1974 kii wixii ka dambeeyay ilaa 2009 oo dawladii Stephen Harper ay wax ka bedeshay dadkaas inay hadda dalban karaan oo proof of certificate citizenship Canadianka ay dalban karaan taas waa ko weeye maxaa yeelay wuxuu ku eekaa first generation limit waxa weeye dadka aan fahamsanayn in dadka halkan ku dhashay kaliya ta inay dadka dibadda ay ku dhalaan ay u dalbi karaan marka haddaad tusaale ahaan aad halkan ku dhalatay waad u dalbi kartaa ilmahaagii sharcigaasi markii hore saasuu sheegay laakiin waa laga hor yimid waxa lagu tilmaamay sharci daro hadda ama halkan ku dhalo ama si qaxoontiga ku imow ama immigrant ahaan ku imow haddii ilmahaagu dibadda ku dhasho toos baad ugu qaadaysaa citizenshipka marka waa kaasa wax ka bedelka laakiin muhiimadda dawladdu ay sharcigan ay wax uga bedel ugu samayso waxa weeye dad badan oo gaaraya ilaa 20,000 ilaa 30,000 oo xaq u lahaa sharcigaas ayaa loo diiday markii ay xareysteen taasaa keentay markaa xisbiga liberaalku inay ka shaqeeyaan oo bill C3 la yiraahdo ay soo saaraan ay wax ka bedel ugu sameeyeen kadibna ay runtii dawladii Justin Trudeau ay soo bilowday tanna ay hadda dhameysay 6 bilood ayaa la eegayay la akhrinayay wax ka bedel lagu sameeyay waa ansax mu noqday bisha 15keedii bishan aan ku jirno December 15keedii ayuu ansax noqday sharci buu noqday marka hababka aad u xareysanaysid iyo sida aad u dalbanaysidba website-ka immigrationka Canada ayaad ka helaysaa marka runtii qodobkaas haddaan halkaa kaga gudubno qodobka labaad group 5kii intiina badan waad ogtihiin waanan ka soo hadlay group 5kii runtii sanad kale ayaa lagu daray ilaa 2027 ayaa laga dhigay sababaha dawladdu ay taana raacisay waxa weeye inay jiraan dad fara badan oo faylashoodii ay weli buuxaan isla markaana ay taa u sababeynayso sidoo kale dawladdu waxay sheegtay in la yareeyay dadkii imanayay wadankan taasna sabab ayay u tahay runtii oo waa sababaha ay ka mid tahay loo yareynayo dadkan waxaad ogtihiin waxa la yareeyay haddaanad ogeyn ardaydii baa la yareeyay waxa la yareeyay dadkii work permit-ka ku imanayay waxa la yareeyay dadkii visitka ku imanayay sababta ay dawladani ay saa u sameynaysaa waxa weeye waxa la arkay runtii dad badan oo wadankii yimid oo shaqo la'aan ku dhacday dad badan oo wadankii yimid oo guryo la'aan ku dhacday iyo dad badan oo wadankan u dhashay oo ama cadaan ahaadaan ama immigrant ahaado wadanka degan oo sharci ku leh oo nolosha aad ku adkaatay marka baleemkoo dhan dhaleeceynto dhan waxa la saaray immigrationka iyadoo dawladdu marka taa ay ka duulayso ayaa waxay sameeyeen kaabkii sanad kaste la soo qaadi jiray oo tiro cayiman target bay lahaayeen marka sanadkan waxay soo saareen immigration plan
dadka la soo qaadi doono uu ka yaryahay sanadadii hore runtii aad buu uga yaryahay iyo sanadada soo socdaba saasay markaa sababahaas iyagoo u sababeynaya shaqo la'aanta guryo la'aanta wadankii oo runtii dee maraykanka dhinacan maraykankuna aad bay ay uga socotaa isaguna shaqo la'aan oo halkaana saameyn bay ku leedahay cashuuraha wadanka maraykanka uu saaray wadankan marka waxyaalahaasoo dhan isku birbirsadeen runtii waxay koosgareynaysaa ama sababaysaa in dowladda culeyskaas ay halkan iska xidho albaabkan immigrationka la yareeyo laakiin barnaamijyo kale oo cusubna way la socdaan haddii aan halkan uga faa'iideysto barnaamij kale oo waxaa jira hadda la soo saaray oo loogu talagalay dhakhaatiirta haddaad dhakhtar tahay dhakhtar practice garaynaya practicing haddaad iminka ka shaqaysid oo khibrad leh oo wax ku bartay dibadaha oo doonaya wadankan inaad si fudud ku timaadid runtii waxaad isticmaalaysaa barnaamijka dhakhtarnimada ee hadda 2 week ayaad ku imanaysaa 2 week oo isbuuc oo kaliyaata waa marka any dhakhtar haddaad tahay dhakhtarka ciyaalka dhakhtarka familiga dhakhtarka ilkaha dhakhtarka wadnaha any dhakhtar kasta oo aad tahay runtii wadankan waad iman kartaa sabab taas waa barnaamijka ugu fudud hadda dowladdu ay soo saartay weeye uu cusub yahay barnaamijkani malaabil buu jiraa baan u maleynayaa barnaamijka markaa waxaad haddaad doonaysa inaad ka faa'iidaysatid oo shuruudihiisa aad bixinaysid waa haddii aad shuruudihiisa buuxinayso waxaa ka mid ah shuruudihiisa inaad dhakhtar full dhakhtara oo iminka shaqeeya oo practice garaynaya aad tahay kolley waxaad ka helaysaa informationka oo dhan websiteka immigrationka ayaad gelaysaa halkaasaad ka helaysaa uu ku jiraa pageka hore marka barnaamijkaana laga faa'iideysto dhakhaatiirta wixii dhakhtara Soomaaliya in ay ka faa'iideystaan ee caalamka jooga oo wadankan hadday doonayaan saa ku yimaadaan maxaa yeelay dhakhtar baa tahay markiiba shaqaad helaysaa shaqa ku diyaara waxba kama markaa dhakhaatiir fara badan baa wadankan looga baahan yahay iyo haddaad nurse tahayba xataa waa loo baahan yahay iyo nurse waa haddaad runtii hadda ka hor waan ka hadlay arrimaha caafimaadka laakiin dadku waxaad moodaa inaanay shuruudaha buuxin karin barnaamijka nurse-ka aad baan uga hadlay laakiin ma buuxinayaan shuruudaha dad badan waxaan arkay runtii lama aqbalo jaamacadaha wadanka Soomaaliya ku yaala haddaad halkaa jaamacadaha wadanka Soomaaliya aad ka baxday ha isku daalinin maxaa yeelay lama aqoonsana credentialkooga lama aqoonsana jaamacadahaas waxaan loo aqoonsanin qofka English waxba kuma baran practical fiican ma laha runtii jaamacaduhu waa iska open business bay iska yihiin tayadooda waxbarasho ma fiicna taasaa marka keenaysa wadankii oo si fiican aan loo aqoonsanin wadankii oo baasaboorkiisa aan la aqoonsanin marka waxyaalahaas oo dhan waxay keenaysaa aqoonta Soomaaliya inaan si fiican loo aqoonsan laakiin haddaad tahay qof practice garaynaya oo sida wadanka Kenya oo kale ka baxay Malaysia oo kale xataa Ethiopia oo kale wadamaha Carabaha haddaad ka dhakhtar aad ku tahay practice garaynaya inaad barnaamijkaad ka faa'iidaysatid oo haddaad doonaysid intaana taasaan kaga gudbaynaa halkaasaan kaga gudbaynaa runtii arrimaha iminka caalamka ka socda haddaan in yar jaleecno arrimaha waxaan arkayay qaxoonti fara badan oo dowladda Sweden ay leedahay waanu wadankoogii baan dib ugu celinaynaa taana waxaa kala shaqaysay saan wararka ku maqlayay dowladda Soomaaliya marka runtii dowladda Soomaaliya wadankii oon si fiican u hagaagsanin ayay haddana dadkii qaxoontiga ahaa ee nolosha raadsanayay ayaa waxoogaa lacaga inta la siiyo dowladda ayay saxiixayaan oo kumanaan kun oo dada qaxoontiga oo bilaa sharciya la soo celinaya marka runtii arintaasina way jirtaa dowladdu hadda ka hor way diiday dowladda Soomaaliya waliba xafiiska prime ministerku way diideen laakiin hadda waxa soo baxaysa in ay Sweden ay sheegtay meelo badan bay ku sheegeen inay ay celinayaan oo ay bilaabayaan waliba xoog ay enforcement sida hadda Mareykanka ka socoto kale inay sameynayaan oo wadankii lagu celinay wixii bilaa sharciya taa hadda halkaa uga gudbo waxaan u gudbi doonaa Mareykanka runtii Mareykanka waxa ka socda waxa weeye waa siyaasad oo dadku ma fahamsana in doorasho wadankaas ay ku soo socoto maadaama doorashada ay ku soo socoto Donald Trump runtii wuxuu leeyahay meel uu codsado aad bay uga foorartaa markaad eegtid arrimaha dhaqaalaha markaad eegtid waxyaalihii uu balan qaaday oo runtii sidii la rabay wax u rabay ayna u soconin Minnesota ninka haysta waa dimuqraadi weeye xisbiga dimuqraadigu ka soo jeeda doorashadii markii soo dhowdahay midtermkii baa soo dhow
waxaasoo dhan culeyskaasoo dhani waxay sameynayaan in target qolo la baacsado oo isha la saaro marka maadaama yihiin Soomaalidu dad fisibala oo dad meel isku urursaday oo ganacsiyo samaystay oo ku balan state-kaas diiradu iyo kay qabatay sababta diiradu u qabatayna waxa weeye runtii arrimihii musuqmaasuqana arrintaasina xiriir bay la leedahay oo dadkii musuqmaasuqa sameeyay iyagoo halkaa u soo maraya oo u soo tuubaraacay runtii taas waxay keentay in lagu dhajiyo shaambad inay dadku wada xun yihiin dadka Soomaalida halka ku dhaqani laakiin waa arinta waxay ka dambaysaa waxa weeye waa siyaasadda weeye waa doorashada soo dhow midterm doorashadii baa soo dhow 2026ka ayaa doorashooyinkii baa dhacaya ninka in laga qaado meesha Minnesota la doonaya Soomaaliduna aad bay ugu codaysaa dimuqraadiyiinta marka waxyaalaha soo dhan waxa weeye waa iska siyaasad weeye dadka sharciga haysta ma runtii ma مسافرين كران ومايا حتى waxaan مسافرين